السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي على سكسو نقد وناكسن إن dhowr jeer ayaa dad asxaab waxay weydiiyeen oo iga codsadeen inaan ka soo hadlo sida ugu fudud ee la isku caateeyo mawduuca iscaateyska marka laga hadlayo dabcan waa dareemi kartiin dadkeenu dhan hadda lifestyle-keeni iyo nolosheena waa isbedeshay waxaa jirtay ragga kuwa ciilan ay gabdhuhu ugu jecel yihiin ragguna ay gabdhaha kuwooda ciilan ay ugu jecel yihiin marka waxaa la dhihi jiray ha gaabanaato saas ha ahaato ha kuusanaato ha gududanaato marka waxyaabo badan oo waxaa jiray gabdhaha waaga hor lagu doori jiray laakiin hadda wuu isbedelo wadciga dabcan way jiraan weli dad oo jecel old school ah oo weli ku jiro howlahaas dadka gabdho jecel nin ciilan iyo rag jecel gabdho ciilan inta way jiraan ceebna ma aha waa dadku dooq waa ku kala duwan yihiin laakiin cudurradii waa bateen wacyigelintii bulshada iyo arrimahaasna waa ay bateen marka soo jeedinta ku aadan arrimahan oo ku saabsan iscaateynta aad u badatay jiimamkii xamar waa bateen garoomadii kubadda cagta lagu dheelayo waa ay bateen taasna waxay ka tarjumaysaa inay dadkii oo dhan ay u soo jeesteen inay caafimaadkooda wax ka qabtaan oo ay miisaan iska dhimid ay sameeyaan maxaa yeelay qofku markuu miisaan ku bato waxyaabo badan iyo cudurro badan ayuu u nugul yahay intaas kadib sida ugu fudud oo la isku caatey karo ayaan qodobo aad u kooban kugu sheegaya hordhac kadib kow si aad isku caateysid dadka badankood gym ayay garaacaan waqti badan ay geliyaan waxaa arkaysaa qof 6 bil gym wada oo ku dhahayo gymka waa ka niyajabay 6 bilaa waday miisaan muuse iga dhicin waxba maana soo kordhin marka waa ka niyajab waa iska dhaafa akhyaare gymka waxba soo kordhinaya haddii gacanta iyo afka aad kala haynin meesha oo iscaateyska uu ka bilowdo waa guriga iyo jikada cuntada cunaysid in saaxiibkay waxaa xasuusta hadda ka hor ciilnaay oo arrimahaas ku dhibanaay oo markaan dhahay maxaa cuntaana oo iigu jawaabay nin wax badan ma cuno aad baan cuntada dhan iskaga dhaafay xilli galaba ahayd marka waxaan ku dhahay maanta oo kale maxaa ku qadis maanta waxba ma cunin uu dhahay wax yar oo aan salaato yar iyo koostaato yar iyo cad malaay iyo koob caano iyo half bariisa cunu dhan ninkaas hadda wax u dhimanba ma laha laba case iyo qado isla cunaa la dhihi karaa marka waxyaabahaas waxaa keenaya inaanan ogeyn wacyigeena maxaa cuntadan ay ka kooban tahay ma fat ay leedahay ma protein ay leedahay calories-keeda ama calories-na dabcan waa la wada yaqaan waa halbeega cuntada lagu cabiro waxyaabaha ay leedahay nafaqaadka iyo waxyaabahaas qofka hadduusan ogeyn cuntadan waxay ka kooban tahay oo iska dejiyo waxaa laga yaabaa 2 xab moos qofka inuu intuu cuno ama 2 xab oo kun galabti oo isdhaw xumaada cunin waxaa maraysaa 400 oo calories ku dhawaad 300 iyo jajab 400 oo sii socota hadda 4 saac cunto 2 xab moos iyo 2 xab oo kun tusaale ahaan halbeega cuntada markii laga hadlayo calories-kan waxaa la 2000 average-ka celceliska bini'aadamka wuxuu u baahan yahay si uu u maintain gareeyo markaas ama uu joogo miisaan ahaan meesha markaas uu joogo wuxuu u baahan yahay dhahan 2000 oo calories marka haddiiba marka galabtiisi baashaal 400 oo ku cuna jaaw wuxuu joogaa ku dhawaad 4 meelood meel uu cunaba wuxuu cuni lahaa marka haddii marka hadhow 2 xabo moofo iyo saxan cambuule iyo isla tagan waa dareemi kartaa marka gymka aad uu muhiim u yahay socodka aad uu muhiim u yahay iyo exercise-ka laakiin waxaa ka muhiimsan waxaa cunaysa 70% waa diet-ka 30 soo harana waa gymka iyo lifestyle-ka iyo qofka niyadiisa laftirkiisa inuu stress iyo waxaas ka dhaafo hurdadiisa saxo dadkan waxyaabaha common ku waxaa kamid ah oo aan aad u arkay habeenkii la dhafraa habeenkii qofku markuu dhafraa maanta dhan markuu ku jiraa waxaabiid chips cun biscuit cun waxyaabaha keena waa inuu qofka overweight oo noqdo oo si fudud asagoo danaysaneen oo miisaan uu ku fuulo marka si aad isku caateyso waxa u baahan tahay haddii lacala aad reero gym ahayn tusaale ahaan gabaraa tahay reero gym ma tihid reero banooni ma tihid gym ma rabtid waxaa samayn kartaa waa soco kartaa hawsha gurigaa badsan kartaa waxaa marka isku dhex daraysaa hawsha gurigii iyo socodkii iyo cuntadii oo aad saxday cuntada iskama dhaafaysid dabcan hadda cuntada iska dhaafto waxa kugu dhacay dhiig la'aan iyo wareer iyo jahwareer waa saxaysaa cunto saxana cunaysaa waxaa iska yaraynaysaa waxyaabaha la dhaho 4 cad oo xeerta barafka sokorta cusbada waxyaabahaas waa ku badiyihiin cunto Soomaaliga saakooda warheena waayahan dambana waxaan ugu batay waxyaabahan waa taqaaneen chickenka iyo jibsiga iyo meesha lagu arkaba caraf kaliya macaan kaliya la iska mid karo
waagii hore dadkeena waalidkeena waxay cuni jireen masago iyo caana geel iyo hilib iyo wax saxan cunto saxan ay cuni jireen ma isku dhici jireen waxyaabahan hadda socdo cholesterol iyo inta jiraan Allah caafiyo intaas ugu muhiimsan qodobada la isku caateeyo cuntada waa iska saxdid cunto saxan muxuu ahayd oo aad cuntid oo ku haboon inta rabtid miisaan inaad iska dhinto ina almiiteysi socod ama howlguri ama gym ama banooni waliba si fiican aad dhidid badan aad iska keentid waxaan hoos idinku reebi doonaa muxuu ahayd emailkayga iyo whatsappkayga igala soo xiriir haddii aad u baahan tahay inaan kuu sameeyo meal plan oo free ah dadka waxaa la iskaga cunaa lacag iyo waxyaabahaas laakiin bilaasha kugu sameynaya intaa rabtid miisaan inaad iskaga dhintid targetkaada ay sheegaysaa cunto kugu habboon ayaan kuu sameyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo inta aan muuqaalka kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo insha Allah. Assalaamu calaykum.